oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga u ciiday golaha wakiilada Soomaaliland uga tartamaya gobolka Sanaag ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska guud ee ololihiisa ee magaalada Ceergaabo waxaana uu hore xafiisyo kala duwan uga soo furay qaar ka mid ah deegaanada bariga gobolka Sanaag munaasabada xariga jarka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xisbiga u ciiday gobolka Sanaag madax dhaqameed haween iyo taageerayaasha musharaxa ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay aqoon-yahan Yaasiin Maxamed Sharmaake oo la hadlay taageerayaashiisa waxaana uu ka codsaday inay cod ka siiyaan maalinta doorashada lana eegtaan astaantiisa oo ah gaari wada salaam waxaan rabaa inaan u mahadnaqo taageerayaasha laxaad kale ee mugale ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka gobolka Sanaag sida la sheegay anigu murashax Yaasiin Maxamed Sharmaarkaan ahay waxaan isu soo sharaxay waxa weeyaan dhaqaale kama raadinayn dhaqaale ugu filan waan haystay shaqo ugu filan waan haystay waxaan shaqooyinkayga uga imi waxa weeyaan inaan dadkayga iyo gobolkayga iyo qarankayga Soomaaliland aan u shaqeeyo insha Allah kariim markaan golayaasha tagana waan xaqina ayaan geyn doonaa waan idii doodi doonaa matalaadina dadkan ku matali doonaa matalaadaba insha Allah kariim waxaan soo furay xafiiskan waa xafiiskii guud ee degmada Ceergaabo hore waxaan xariga uga soo furay xafiiskii degmada Baran xafiiskii degmada Hadaftimo deegaanka Dooxa Dheer dhammaan xafiisyada baan ka soo furay insha Allah mana ahaan doon xafiiskan waa centraalkii ugu dambeeyay gabi ahaanba gobolka waan ka furi doonaa tuulo walba degmo walba waxaan rajaynayaa maalinta doorashada saamaanta isugu soo baxdeen inay isugu soo baxdaaniin oo aad codkiina u dhiibataaniin oo astaanta barakaysan ee gaariga aad codkiina ku hubsan doontaaniin soo sidaa ma ballanteeno gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga u ciid madax dhaqameed waxgarad dhalinyaro iyo xubno ka mid ah taageerayaashiisa oo halkaasi ka hadlay ayaa u ballan qaaday inay cod ka siinayaan maalinta doorashada iyagoo tilmaamay in aqoon-yahanku ku habboon yahay in la doorto isla markaasina ay codkooda ku hubsanayaan astaanta gaadhiga Yaasiin waxaan ku leenahay ku soo dhawow degmada Ceergaabo ku soo dhawow xarunta gobolka Sanaag waxaan kaloo uga hambalyeeynaa xafiisyada oo xariga ka jarayo maanta oo ku soo beegmay waqti ku habboon si uu hawlihiisa campaign-ka ugu sii dardargashado waan ku soo dhaweynaynaa Yaasiin wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanka gobolka sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka gobolkan benefit ka gashaday gobolkan baaxadda weyn qaybaha badan ka dega waxaan u rajaynayaa taageerayaashiisana inay codka siin doonaan waxaan leeyahay taageerayaasha Yaasiin meel kasta ay joogaan cod kasta Yaasiin siin maysaan waxaanu isku ognahay Yaasiin codka inaa siisaan galin horeba sideedaba halka ula soo boodaan wuxuu hormoodu reer Sanaag ayuu maxay tahay hormoodu yahay waxa weeyaan waa aqoon-yahan waa mutacallin aqoon-yahana maskaxdiisuna ay maxay tahay fresh tahay oo taam tahay marka waa dadkii loo baahnaa inay soo sharaxaan waa dadkii talada dalka inay hogaamiyaan looga baahan haweenka dhalinyarada inaad codkana u siisaan Yaasiin Maxamed Sharmaarke oo ka sharaxan xisbiga u cid calaamadiisuna ay tahay astaantaas gaadhiga waxaan rabnaa inaad dhammaan soo wada dhaweysaan codkana la siiyo inaynu soo dhaweyno nin aqoon-yahana oo dhalinyaro ah oo ah dadkii gobolka Sanaag uu u baahnaa ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa waa Yaasiin xafiiskiisa daafuraya laakiin Yaasiin waxaan idinku dardaarayaa in aynu maalinta codbixinta muhiimaddu waa maalinta inaan sidan u soo baxno oo dadka Yaasiin la midka ah ee waxay noo qabanayay Yaasiin aynu u codayno daafurka musharaxa Yaasiin Maxamed Sharmaarke Caamir waa rabadaan waa waqti adag oo maxay ahay taayay hadal badan ma fura waa soo dhaweyntan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa xildhibaankana aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa xisbiga u cidna waxaan leenahay xildhibaankan aanu ka soo sharaxnay xisbiga u cid waa xildhibaan la soo xulay ma aha xildhibaan iska yimi ma aha nin soo shaqo tegey waa naga gud horena waa nooga guddanteen iminkana waxaan idin leenahay la shaqeeya oo xildhibaanka waxa ka ilaalisaan turunturrada xafiiskanina waa xafiiskii ololaha xildhibaanka Yaasiin Maxamed Sharmaarke Caamir ee gobolka Sanaag waxaanu ilaah kaaga rajaynaynaa inaad ku guulaysatid xildhibaannimadaada dabeedna aad bulshadaada u shaqaysid dadkaa ku soo dhaweynayaa dhammaan waxay ka kooban yihiin bulshadii reer Sanaag oo cid walba leh waxaanu ku leenahay dadkaasaa ku doortay ha noqon qoladii hore oo kale oran jirtay reer hebel baanu nahay ama reer hebel baa xildhibaan Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ceergaabo